idaacadda Samadoon radio successka ugu muhiimsan weeye dadkii Soomaalida ahaa ee walaalaha ahaa ee dalka Norway ku noolaa in maanta aan codkayga gaarsiiyo galmudug waxay tahay oo aan u sheego galmudug inay tahay maamul Soomaaliyeed maamul ay iska leeyihiin dhammaan dadka reer Norway oo Soomaalida oo aan laga xigin meel ku soo hiran karaana inay tahay galmudug codkaas inaan gaarsiiyo waa fursad aad iyo aad u qiimo badan waxyaalaha ka faa'iido weey sidoo kale dawladda wadankan wada hadal baan galnay ku saabsan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen barnaamijyada aan ka wadno horumarinta deegaanka ballanqaad fiican bay noo sameeyeen waaya ma cid baan ku haynaa khadka telefoonka ku jirto oo su'aal qabta wasiirka caawa sida noogu ah radio Samadoon hello kusoo dhow radio Samadoon habeen walba hadayaan hawada soo galnaa waxaan ku leeyahay magacaaga meesha naga soo wacaysid iyo su'aashaada sida ay u dhiganto السلام عليكم وما سنتها حسن مقاعد وسعيد على مصر kusoo barnaamij الو waan ku maqlayaa Saciid su'aashaadu sidee bay u dhigantaa ku socota wasiirka caawa nala jooga حسن مقاعد وسعيد waaya waxaa kamid ah bulshada magaalada Oslo ku nool waa la socday barnaamijka wasiirka aan xaqba Dr. Umar inaan weydiiyo su'aal kusoo dhow su'aashaada وسير وقصرنا يا مقاعد وسعيد سؤال عن ربينا كويدي ما دام عتاي مدني مسؤول بالمدن maamul goboleedyada sida Puntland iyo Somaliland wax iskaashi ma ka sameeyeen xagga waxbarashada arrimaha caafimaadka iyo bulshada maadaama Soomaalida inta kale ay maartay wali maamulka ka jirin waaya inuu ku maqlayaa fila wasiir iskaashi waa jira xiriir aan leenahay wasiirka waxbarashada muxuu ahaa galmudug state sanadkii hore ama sanadkan bilowgiisii sidaan filayo muxuu ahaa hadaan halmaansanayn waqtiga uu aaday uu tagay Puntland Garowe hay'adaha ay degan yihiin international NGOs-ka waana wasaaradda waxbarashada oo dhigeeda ahna waa ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa barnaamijyada waxbarashada xuduud ma laha siyaasadda iyo waxbarashaduna isuma xirna marka sidaas darteed waa jira Puntland sidoo kale waxaan ballansanahay Somaliland aniga laftiga wax ku soo bartay Somaliland muxuu ahaa dugsi hoose ilaa dugsi sare Somaliland baa warwasa baxaa isnaqaana rag hadda dawladda ku jiro dhan rag baan isu kalaas ahaan jirno waa isoo naqaana waana xiriir baa jira waxaad moodaa su'aashaas wax yar ka hor baa wada hadlaynay reer Somaliland telefoonku wada hadlaynay marka xiriirku waa jira dadka Soomaalidu ma kala go'na oo dawladda kala go'an ma aha fiisana la isuma qaato xiriirkaas waa jira in la iskaashadana meesha waa ku jirtaa waana jira muxuu ahaa garashadaas waa jirtaa Saciid waxaan filayaa inaad ku ganacsan tahay jawaabta uu ku siiyay wasiirka caawa martida noogu ah radio Samadoon wasiir waxaan ku weydiin lahaa safar haddii ay macquul tahay waan ku maqlayaa walaal si kooban haddii aad noogu sheegi kartid waqtigu aad noogu ilaawiyay su-aasha kale waxay tahay maadaama adiga aad tahay nin oo qurbaha muddo joogay oo qurbaha ka laabtay u faralaabtay yani maaragtay dhibaatadaas iyo maaragtay inuu dadkiisa wax u qabto maxaad nagula talin lahaa dadkeena qurba joogtada ah oo ku raayay oo maaragtay dalkii maaragtay u baahan inay kusoo laabtaan su'aal fiican baad weydiisay anigu laba qodob ama saddex qodob baan oran lahaa oo dadka diasporaha dibadda aan kula talin lahaa midda koowaad waxa weeye horta shidadaha laga ilaaliyo iyo propagandaha dadka gudaha ku jira shaqada wado waxyaalaha propagandaha oo dadka qaar website-yada ay kusoo qoraan iyo waxyaalahaas horta dhibka laga ilaaliyo oo yaan dhib la gaarsiin dadka gudaha jooga ee shaqada haya midda labaad waxaan anigu kula talin lahaa maanta dadkii waxgaradka ahaa Soomaaliya waxay soo aadeen dibadaha waxay la soo aadeen waxa weeye waa potentialkii resourceskii waxay la soo aadeen dibadaha dad badan waxa arkaysaa muxuu ahaa waxbarashada oo experts dad badan oo caafimaadka dad badan oo skills kala duwan leh skillskaas muxuu ahaa wadanka looga baahan yahay waxaan oran lahaa dalkii ha lagu celiyo skillska isbedel baa la sameyn karaa muxuu ahaa qofku markuu aqoon iyo khibrad uu dibadaha kala yimaado wuxuu ku siyaadin karaa wax badan wuxuu sameyn karaa wax la difference buu sameyn karaa isbedel buu sameyn karaa midda labaad waxa weeye muxuu ahaa qodobkaas weeye in lagu laabto tan saddexaad waxa weeye war ilmihii muxuu ahaa qurbaha la keenay
soo lama soconno ilmahan inaysan sheegan doonin dalka iyo dadka annaga aan sheeganayno muddo haddii laga soo wareego sidaas darteed ilmaha waddankii in la geeyo fasaxyada la geeyo dhaqankii lasoo baro dalkii lasoo baro anigu saddexaas qodob baa igu muhiimsan markii laga soo tago taageerada gacanta ah oo dadka ku tabaaleysan waddanka oo musiibooyinku ku haystaan ama dagaal oo qaxooti ah oo abaaro ah oo magaciisi in gacan laga geysta ayadana waa ku talinaya afartaas qodob waayahay kaasi waxa Saciid kulli su'aal qabeen waxaan filayaa Saciid aan qanacday habeen wanaagsan markaa waad salaaman tahay wasiir haddii aan ku weydiiyo safarkaagan aad ku timid dalka Norway magaalada Oslo sidee uu noqonayaa socdaalkaagan ma ay mise inta leeg ma joogaysaa dalka waxaan imid Norway maalinkii talaadadii na soo dhaaftay baan imid oo bishu waxay ahayd 5 bisha waxaa ku egyahay socdaalkaygu 11 bisha 12 bisha haddii la yiraahdo oo talaada waa ka tegaya waddankan wadamo kale oo Yurubtaan rabaa inaan sii maro saan oo kale waxaan filayaa inaan ku helno qad kale telefoon qof Soomaaliya ku jira magaca xagee sanad soo wacaysa su'aasha aad wasiirka u qabtaan sidee bay u dhigmaysaa walaal عليكم السلام. ماذا هو حوالي حسين ربيعنا ودي أن سؤال أن يا وزير سوماليا waxay u qaybsanayd ama ijtimaac u qeybiyay 5 qaybood oo kala ah NFD Soomaali galbeed Soomaaliya Somaliland markaan 5 qaybood u qeybiyay ijtimaac maanta waxaan aragnaa inay si kala qaybsan maqnaa Somaliland Puntland galmudug xigan iyo heer Jubbaland والبلان طبعا غيره مسؤول Soomaaliyeed ahaan مسؤول ahaan siyaasi ahaan Soomaaliyeed wuxuu muuqataa siyaasadda isticmaalku waddan lahaa Soomaaliya ay qaylo inay maanta u gashay xuseen waxaan kaaga jawaabayaa isticmaalku waxa uu rabo waa gaar waxa annaga rabnaana waa ka duwan yihiin isticmaalku wuxuu rabay waddankan inuu sii haysto oo uusan calankiisa iyo xorriyadiisa qaadan ma aysan dhicin isticmaalku wuxuu rabay Soomaaliya inay 5taas qaybood ahaato ma aysan dhicin waxa la socotaa koonfur iyo waqooyi inay isku darsameen rabitaanka shacabka ka muhiimsan rabitaanka isticmaalka haatan kala qaybsanaantan maamulada la sameeyo dad badan baa waxay u arkaan negative laakiin waxaan u arkaa inay positive tahay in hoos wixii laga soo bilaabo ka bacdina dadka Soomaalidu isdiidi maayaan waa isku imaanayaan oo la noqdo muxuu ahaa optimist oo la noqon pessimist baan aniga qabaa yahay ku soo dhow dalka Norway aad baan ugu mahadsan tahay sida qiimeynta qadarinta leh ee walaaltinimadu ay ku dhahan tahay ee waqtiga qaaliga aad nagu soo hurtay waayahay xasan aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa soo dhaweynta iyo barnaamijka waxaan sidoo kale u celinayaa dhammaan wariyaasha kale oo kula jooga iyo muxuu ahaa ragga kameraha iyo qalabka muxuu ahaa farsamada oo radio Samadoon jooga waxaan iska ilooban rabaa ummadda Soomaalida u sheego tacsi aan rabo inaan halkaan uga soo gudbiyo abwaan abshir bacadle oo nin caan ah oo la yaqaan oo abwaan caan oo Soomaali laga yaqaano waxaan rabaa halkaan inaan tacsi uga soo gudbiyo eheladiisii ilmihiisa iyo saaxiibadiisa iyo dhammaan dadkii muxuu ahaa abshir bacadle yaqaanay iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan tacsi halkaan uga soo gudbiyo asagana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno ilaahay inuu ka waraabiyo waana xasan waa mahadsan tahay dadka Soomaalida oo walaalaha oo dalka Norway deganna waa mahadsan yihiin waana muxuu ahaa waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ku soo laaban doono waqtiyo badan oo kale mustaqbalka kaasi waxa uu ahaa idinku dalka noogu imaan doontaan kaasi waxa uu ahaa waan idinku soo dhaweynaa galmudug kaasi waxa uu ahaa Cumar Maxamuud Roble wasiirka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ee ismaamul goboleedka galmudug aad baad u mahadsan tahay geesiyaan gadaal marin naqashana aqooniyo geesiyaan gadaal marin naqashana aqooniyo gaarbay u leeyihiin galmudug gaarbay u leeyihiin galmudug